bismillahi rahmaani rahiim markaan waxaan ku tusabaa sidee markaa su-aalahaaga dhamaystirto oo su-aalahaaga fieldiga aad geyso oo laga soo jawaabo adoo jawaabihii liis ku qortay oo su-aal kasta oo kuwan ka mayso tusaale soo qaad dentarka oo kale oo ka koobnayd male and female oo aad taxday imisaa male dooratay su-aalaha dadka aad weydiisay oo liis kugu qoran tahay liiska ay kugu taxan tahay sidee jawaabihii marka loo geliyaa SPSS-ka hadda waxaan taagnaa variable view oo datan ku xareeyay oo ka samaysnay hore soo sheegnay name tape waxaa kor saarnaa laakiin markaan waa ka tagay halkan waxaan tagayaa data view markaan tago kadib waxaa ii soo baxay wixii aan soo gelin oo dhan fiiri gender koray furayaan variable kursi furayaan gender age marital education occupation question 1 2 3 4 ilaa 5 aan soo geliyey markaan xareynayo waxaan xareynaa number ahaan number 1 aan qoraa markaan qoraa intaan dhaha way hore ka gelaysaa marka age wuxuu ka koobnaa 1 iyo 2 bis ah waa inaan markaa gareeyaa inta 1 dooratay inta 2 dooratay haddii aan 10 ruux gelino 10 aan ka soo qaadana tusaale 10 aan gelinaa 10 aan gelinaa marka wax ka dhigaynaa in 4 ay ahaayeen male 6 ay ahaayeen female 4 male ahayd ala male marka waxaan ka qaadanaa inay hal ay yihiin 4 haladaan gelina marka 2 3 4 4 male ay ahaayeen female kan 6 ay ahaayeen 6 geli 6 laba ah 2 hadda waa dhammaystiran tahay hadhow aan ku tusi doonaa marka inay wax ka kooban tahay age soo qaado wuxuu ka koobnaa 15 ilaa 25 25 ilaa 30 saas u samaysnaayeen waxaa doorataa in 7 in 3 ruux ay dooratay inay jiraan 15 ilaa 25 4 ruuxna ay dooratay inay jiraan 35 ilaa 40 waa nambarka saddexaad hal ruuxna uu doorto inuu jiro 25 ilaa 30 waa nambarka labaad laba ruuxna ay ka weyn yihiin 45 waa nambarka afraad soo qaad marta statistics markaa waxaad doorataa 10 ruux inay 3 bisingal ahaayeen 7 inay ahaayeen waxa lagu magacaabo 7 inay ahaayeen waxa lagu magacaabo merit 3 singalka waxaan dooranaa marka 3 xabo merit wuxuu noo ahaa 2 number 2 waxaan dooranaa 7 number oo mid 2 ah education soo qaado inay kulli wada ahaayeen bachelor waxay ahaayeen nambarka labaad laakiin waxaad tiraahdaa bachelor waxa wada ah 8 halna wuxuu ahaa labana waxay ahaayeen secondary ama kala qad qaad doonto 8 waxaan gelinaa marka maadaama batch uu ahaa nambarka labaad 8 labaadaan gelinaa labaad waa geliyey laba ay soo hartay hal secondary ahaa dheh halna master ahaa dheh master waxay ahayd 3 PhD ma jirin dheh marka cirkoon halkaa imaa marka occupation soo qaad shaqadiisa kulli waxay wada ahaayeen student xataa 6 way ahaayeen student ama 4 student ahaa dheh maxaa ku xigay student businessman laba ruux businessman ahaa dheh maxaa ku xigay health worker hal ruux ahaa dheh maxaa ku xigay others kale waxaad tiraahdaa waa badnaayeen 3 ay ahaayeen question waxay ahaayeen yes no waxaad tiraahdaa waxaa yes dooratay laba nood waxaad dooratay kulli tan lidka dhig yes waxaad dooratay wax badan noona waxaad dooratay wax yar tusaale ka wada bisna yes waxaad dooratay wax badan no waxaad dooratay wax yar kan waa ka duwan tahay place la sheegay aan ku noqdo daarto ku tusaya hadda waxaan tagay data view waxaan markaan noqonaa waxaan tagayaa variable view kadib saan kugu tuso su'aasha nambarka afraad aan raaca waxaan soo fara badan ansarkeeda waxa ka koobnay waxaan warbixinta ka helay Frandis radio ashan radio laga rabaa radio iyo doctors wuxuu warbixinta ka loo istirnaa halkan ay imaana marka si kala horaan fahamsama Frandis ka u badan 3 jeer ka heleen dheh radio waxa ka helay laba xabba ka helay radio dheh waxay ka heleen oo markaan ka soo tagnay telefoon iyo radio dhakhtarka waxaad tiraahdaa 3 ruux ka heshay 4 ruux ka heshay waxa u dambeeya oo dhakhtarka ka dambeeyay oo warbixinta dhakhtar laga helay waxa u dambeeyay others isna ay others la filaa others kan others wala kan others wala others geli marka others waa nambarka afraad intaas hadda waxaan ka soo qaadanay kan waxa tira yes inoo koobnaa yes tabadi
no hal xable ka dhig daatad haddii ku ahaan lahayd konton hadday ku tahay boqol hadday ku tahay kulli saasa loo geliyaa oo loo taxaa laakiin marka hore jawaabtaada oo jawaabaha waxa lagu soo qoraa waraaq liis yar oo kooban oo su-aal kasta inta laga jawaaba lagu soo leesgarayaa si gelintan ay kugu fudaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi